السلام عليكم. maanta waxaan ka hadlaynaa koobka adduunka waxaan doonayaa in soo taabtaabto ilaa berigi cadaan iyo midowgii ilaa koobka lagu qaban doono ruushka sii gudugeli mayno maxay gruubada iyo waxay ka kooban yihiin waan soo koobina sheekada 1930kii Uruguay iyo Argentina baad ku kulmay waxaana badshay Uruguay waxaana ku badisay 4-2 sanadkii ku xigayna waxa lagu qabtay Talyaaniga ku guuleystay 1938diina Talyaaniga ku ceshaday isla markaana kadib muddo dheer bay maqneed ilaa 1950kii sababta ma garanaysaa waxa uu wacnaa dagaalkii adduunka ee ka socday markaas 1950kiina waxa lagu qabtay Brazil waxaanay Brazil waa laga badiyay Brazil waa laga qaaday waxaana ka qaaday Uruguay 2-1 bay ku dhabaatay وانا قول دردي وحمد برازيل سومرت مركز وايو تربكو 200,000 با ماشي isku yimid waana laga qaaday waxay la mid tahay teacher markoo kale 1954kii waxa watay wadanka la yiraahdo Almajar English waxa lagu yiraahdaa Hungary waxaana watay ninkii la oran jiray Puskás waanika baladoorka la bixiyo magaciisa lagu magac daray 32 bay ka soo badisay marka Jarmalku kala qaybsanaa Jarmalka waqooyi bari ay ahayd way ka soo badiyeen Serebreebkii hadana finalkii baa la isku yimid tiyo ay hormarsan yihiin ay ciyaarto 2-1 ay tahay hafkii koobaad ay Jarmalku mucjiso ay leeyimaadeen markaas way u bedeleen matchkii 3-2 1958 waxa la bartay xidiga loo yaqaan Al-Jawhara Sawda xidigaas wuxuu ka soo bediyay Wales Francis waxa ku xigay Sweden si loo garto macnaha iyo magaca uu leeyahay Abedi Bile 1962kii Corinthians ayaa hadana ay soo guuleystay 3-1 bay ku dhamatay ciyaarta finalka Brazil baana ku guuleystay sanadkaasna xiriira 1966kiina waa sanadkii kaliya ee Ingiriisku ku guuleystay sanad kaleba mu arag waxaanay ka badiyeen Jarmalka waana guusha kaliya ee Jarmalka wiligood ay ka badiyaan 1970kii Talyaanigu wuxuu ka guuleystay Jarmalkii isla markaa wuxuu liibay 4-1 laakiin ay isku yimaadeen finalka waxay isku yimaadeen Brazil yaa la ciyaaray Brazil xiliga Bile Zico iyo xidigyo kale badan waxaanay ku dhamaatay ciyaartaas 4-1 waa markaa Brazil koobkii saddexaad ay sidataa saafi ay ku sidataa 1974 waa sanadkii ugu murugada badnaa ee Hollandiis soo bara ee final gaadha 3 jeer marna aanu helin xidiga ugu weyn Johan Cruyff waa ninka ka dambeeyay tikitaakada wax loo yaqaanba xilligaas uu sameeyay ninkaasi finalkii kii gaadhay Jarmal baa ka badiyay Beckenbauer baa watay xilliga haddana 78 waxay isku yimaadeen haddana Holland iyo Argentina Mario Kempes baa xilliga xidig u ahaa Argentina waana laga badiyay Holland waa sanadkii labaad 1982kii sheeka la yaab la ka dhacday halkaas xidiga la oran jiray Paolo Rossi ayaa la dalbaday kiyoon filanin inuu markaa koob adduunka qayb galaba waayo kiis baa loo haystay markaa dawladdu ku haystay kiyo kubadda ba soo ilaaway weydii qaab ahaan iyo maskax ahaan iyo muddo ahaan ciyaar ahaan soo ilaaway ee la dalbaday wuxuu ka badiyay Jarmal hat-trick buu ka xareeyay Brazil iyo 2 gool uu ka xareeyay Holland sidoo uu qaado koobka adduunka ninkaas wax la yaab luha 1986 uma baahna iyadoo la garanayaa Armando Diego Maradona ayaa ku qaaday goolkii Ingiriiska uu kaga qaaday goolkii ugu qurux badnaa ilaa hadda ayaa loo haystaa waanu yahay ciyaartaas waxay ku dhamaatay 2-1 1990kiina way isku soo noqdeen haddana Jarmal iyo Argentina waxaana qadar ku qoray in Argentina laga badiyo waana sawirkii ugu xumaa haddii aad daawato Armando Diego Maradona isagoo ooyaya طبعا كاس العالم افريقيا كاشكي isaga wad garanaysan waayo Bibito iyo Kanu iyo Rashid Yakini xidigu aad bay u badnaan xilliga xitaa sanadka difaaciyan Colombiana lagu dilay waayo gool buu iska xareeyay markuu wadankiisa ku noqday la dhaafiyay 1990
sagaashan sideedii Sugar oo tay Croatia ciyaartaas semi final bay ahayd Faransiis iyo Croatia labada gool waxay xareeyay Faransiiska Lilio Thuram oo weligii gool labadaas aan ugu horreeyay labadana ayaa ugu dambeeyay finalkii Holland iyo ay isku yimaadeen Seedorf iyo xidigii aad u fara badan ba markaa Holland ay soo saartay Overmars iyo ayaan ka sii xusuustaa iyo Colvert Davids isna uu joogay markaa xilliga آخر sanadka waxa isku yimid Brazil iyo France Zinedine Zidane baa ka hareeyay waad garanaysaa heerarkii wax leeyahay Ronaldo uu maqnaa ciyaarta jacayl baa hayban u maleynaya laakiin nasiib wanaag 2002 ayuu hadana soo laabtay waana u qaaday xulkiisii isaga iyo Ronaldo iyo Rivaldo waxaan ka badiyeen Jarmalka Argentina xilliga wareegii hore kaga baxday Batistuta Simeone Ayala xidigaha ka ciyaariyay xilliga Argentina may soo maran marnaba haddana way hadhay koobka waxa qaaday sanadkaas waa Faransiis 2006 Faransiiskii طبعا uu ciyaar ayuu soo bandhigay oo ajaayib oo aad u fiican Zinedine Zidane kaligiiba ka badiyay inaad xusuusatay in kale Brazil hal yeebar bi ku dhamaatay ciyaartaasi waanad weydiin karaysaa internetka hadda doonayso laakiin maxaa dhacay ka xumay waxay isku yimaadeen finalkii Talyaani waxaanad xusuusataa maxaad xusuusataa hirkii uu ka jaray difaaci markaa Talyaaniga yadee kaarkii casaaw u qaatay hirka waxa ka tabeeyay inuu Cannavaro u qaado koobkaas adduunka xilliga imikana South Africa 2010 waa markii yani lo Isbaan ayaa soo istaagay halkii koobka markaa lagu qaadanay imikana 1914 2014 ayaan u jeedaa 2014 maxaa finalkii yimid waxa lagu qabtay koobkaasi Brazil waana maalintii oo inta badneed reer Brazil ay soo gaadhay garoonkoodii tarabuunkoodii toddobayaha waxa ku xiga Jarmalka inuu tago finalkii uu la kulmo Argentina ciyaartaas inay ku dhamaato hal iyo eber tii hore oo hintii Maradona ahayd imkana waa oo hintii Messi ahayd dhammaanba la wada ooyay Messi in laga qaado koobkaas laakiin ka reeb tarabuunka Jarmal iyo taageerayaasha Cristiano Ronaldo ka reeb kuwa aakhirkana 2018 tolo ma laga yaabaa Messi inuu wax keeno koob adduun inuu qaado xulkiisa saasana sheekadu ku dhashay laakiin waxaan kama hadlay carabti aaway xululkii carabtu aaway waan ka warami doonaa iyaga iyo balaayadii la soo galeen garoomada